وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر والصبح ثم يعرج الذين باتوا فيكم وهو أعلم بهم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله إلهي بانكم مهدنينا صلاة عصر أنا إن سوى فجيء إن جمع الله سو حاضرنا وصلاة آذو قيمة بدن ويان نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كان أخرني waxaa inoo sheegayaa insaankan dushiisa malaa'igtu inay isku bedelayso malaa'igta gaarka qabata malaa'igta habeenkii iyo malaa'igta dharaartii kuwii maanta inala oolay casarkii markii la tukaday bay noqonayaan kuwa casarka inta yimaadaan caawa inala baryana salaada fajr markaan tukanay noqonayaan xaqay ka yimaadeen bay ku noqonayaan dhinaca ilaahay jalla wa ala malaa'igtii inala bariday markay ilaahay dhinaciisa u laabaan ayuu ilaahay weydiinuu leeyahay addoomahaygii seed kaga timaadeen uu og yahay addoon kastoo inaga mida xaaladda uu ku sugan yahay ilaahay waa ka warqabaa inta adeecaysa iyo inta caasinaysa ilaahay waa ka warqabaa inta gaajoonaysa iyo inta dharagsan ilaahay waa ka warqabaa inta bugta iyo inta caafimaadka qabta ilaahay waa ka warqabaa inta dhimanaysa iyo inta dhalanaysa ilaahay waa ka warqabaa inta murugsan iyo inta faraxsan ilaahay waa ka warqabaa saacadda inta soo islaamaysa hidaayadda ilaahay ku galladaysanayo iyo inta gaalnimada ku dhimanaysa ilaahay waa ka warqabaa haddana ilaahay isagoo sharfaya addoomihiisa muuminiinta ee salaadaha ilaaliya jamaca ku ilaaliya isagoo ilaahay sharfaya ama sheegid laynoo sheegaya salaada casar qiimaha ay leedahay ugu fadhida diinta islaamka ayuu ilaahay weydiinuu malaa'igtiisa ku leeyahay kayfa taraktum cibaadii seed kaga timaadeen addoomahaygii markaasay leeyihiin ayakuu tukanayana waan u tagnay ayakoo tukanayana waan ka imanay bay leeyihiin allah inaga dhiga kuwaas maalin walba qaa'imadaaba ilaahay la horgeynaya ka warrama magacaaga haddii laga helo ka waran maalin walba sooma liibaanin haddii magacaaga qaa'imada laga waayose khasaare leanna bini aadankan ilaahay kuma qiimeeya maaragtaanay jirhkooga ilaahay kuma qiimeeya bini aadamka waxay haystaan ee bannaanka ka yaalana ilaahay kuma qiimeeyo ilaahay bani aadamka waxa uu ku qiimeeyaa waa diinta waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay xadhigiisa waa ilaahay awaamirtiisa qofka bani aadamku markuu qaato ayuu qofka bani aadamku qiimo yeelanayaa qofka ilaahay diinkiisa ayaa qof ka dhigaya diin la-aan qofku macno yeelan maayo ogow qofku qabiilkiisu macno u samayni maayo lacagtuna macno kuu samayni mayso aqoonta adduunyada aad leedahayna macno kuu samayni mayso waddankaad ku nooshahay nuucuu yahayna macno kuu samayni maayo darajada adduunyadae taagan tahayna macno kuu samayni mayso qofka bini aadamka waxa macnaha u samaynaya waa ilaahay taacadiisa kayfa taraktum cibaadii salaada subax iyo salaada casar malaa'igtaas bedelaysa albaab ayaa jira samada adduunyadu ay leedahay oo la furo maalintii mar baa la furaa nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam salaada duhur ka hor baa nabiga la arkay isagoo 4 rakac tukanaya markaa bay saxaabadu ku yiraahdeen saacadan salaada 4 rakacadood ee labada aad u tukatay macnaha ku fadhida nabi Allah noo sheeg markaa buu nabigu yiri waa saacad albaab samada adduunyadu ay leedahay baa la furaa markaa waxaan jecelahay buu nabigu yiri amal wanaagsan inuu saacada xaq ilaahay ay u gaadho amal wanaagsan inuu fuulo samada
ayaan jecelahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. cajiib. waxaa kaloo nebigu noo sheegay isniinta iyo khamiista labadaa cisho nebigu waa soomi jiray. soonka labadaa cisho aad soomaysa noo sheeg baa lagu yidhi. wuxuu yidhi yowma alisniin wa yowma alkhamiis camalka bini aadanku ay qabtaan baa ilaahay la horgeeyaa, waa la hordhigayaa. khayr iyo shar wixii aad shaqaysaa ilaahay la horgeyni. addoon kastoo ilaahay aan u shariig yeelin dembigiisa waa la dhaafi buu rasuulku yidhi sal alla alay slam. laakiin laba qof oo dhexdoodaasi ay jirta cadaawo, ilaahay wuxuu idhahdaa kuwa liiskooga kuwa camalkooga ha furine celiya ilaa dhexdooda ay iska soo saamaxayaan oo iska heshinayaan, ilaa aysa saamaxayaan iyagoo iscafinayaan camalkooga ha furina baa ilaahay idhahdaa. habeenkii leylat alisra walmicraaj samada adduunyada markii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ay gaadheen isagiiyo jibriil albaabka samaduu garaacay. markaasuu yidhi waa ayaa lagu yidhi waa jibriil. ayaa kula socdaa lagu yidhi muxamed baa ila socda. miyaa loo yeedhay? haa waa loo yeedhay sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam. dadna markaasi malaa'igtu ay yidhaahdeen addoonkan loo yeedhay rabbigii u yeedhay ayaa nicmo le bay yidhaahdeen. iridii bay ka fureen, waa samada adduunyada. deedna markaa nebigu wuxuu la kulmay shaksi ilaahay uu siiyey qaama dharar iyo qurux, laakiin markuu xagga midig eega shaksigaasi waa farxaa, xagga bidix markuu eegana uu murugoonayaa. markaa buu nebigu yihi jibriil waayo buu yihi addoonkan awooddan ilaahay siiyey quruxdan leh. markaa baa lagu yihi waa aadam calayhi salaam, abulbashar weeyaan, waa aabbaha, aabuna aadam weeyaan. 60 diraacan fi الsamaa, nebi aadam intuu leekaa 60 xusul buu leekaa dhar. deedna markaasu waa maxay markuu xagga midig eegana uu farxayaa, xagga bidix markuu daymoodana uu murugoonayaa. wuxuu xagga midig waxa uu arkaa oo la tusaa awlaaddiisa inta wanaagsan ee jannada galaysa ayaa la tusaa, deedna wuu ku farxaa. xagga bidix buu eegi ilmihiisa inta xunxun ee naar ku daadanaysa ehla naar noqonaysa la tusaa baa lagu yidhi, deedna uu ka murugoodaa. marka camal wanaagsan haddaad samayso aabbaha aadan baad ka farxisay ogow. camal xun oo naar lagu galayaa haddaad samaysana aadam calayhi salaam baad ka murugsiisay ogow. adiga matalan iyo aniga ka soo qaad ubadkeenna, caruurtaada marka mid wax wanaagsan lagaaga sheegana waad farxi, mid marka wax xun lagaaga sheegana waad ka nixi soo maaha. aadam calayhi salaam oo ubadkiisa dhan adduunka ay wada joogaan oo inta fiican iyo inta xun weliba inta xun ay ka badan tahay inta wanaagsan, intee buu nebi aadam murugoonayaa markaas? murug. maalinka qiyaamahana banka qiyaamo marka la yimaado ee bani aadamka cadceedda sidaa uu dhulka intuu galo isu yimaado, qaar baa nebigu sheegay dhididkoogu wuxuu iman doonaa kuraamaha, qaar buu iman doonaa maaragtaane jilbaha, qaar buu iman doonaa maaragtaane halka guntiqabadka dhexirka halka dhexda, qaar buu iman doonaa halka maaragtaane garbaha ulolada. wa minhum man yuljimuhum alcaraqu iljaama, halkaasuu iman doonaa dhididka. dhididka qof walba isaga ka dhacay ayaa inta dembigiisu ahaa ayaa soo gaadhi doona. yani waa bad adiga kuu gaaro cid kale kula qabin. cadceedda halkaa inaga gubaysaa bani aadamka saa loo duldhigi doonaa madaxooga. wataraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacdin wanufika fi الsuuri fajamacnaahum jamcan baa ilaahay yidhi. yamuuj saasaa la isku dhex socon doonaa khalqigii ilaahay abuuray oo dhan. markaasay odhan doonaan dadku odhan doonaan dhibaatada maanta aan ku jirno ayaa inaga saari karaa bas. kee ilaahay u dhow oon u tagnaayoo rabbigii nooga ergeeya. markaasaa la odhan doonaa aadam calayhi salaam, aabbaheennii aadam een ka farcamnay oo basharka oo dhan aabba u ah,
oo nabigii ugu horeeyay bani aadamkan asagu ahaa ilaa nabi aadan nabi buu ahaa kaaba loo imanaya marka aadam calayhi salaam oo looran doonaa ishfac lana rabbaka rabbiga nooga ergey maanta noo shafaaca dalab waad u jeedaa dhibaatada aan ku jirno meel aan u dhaqaaqaynaa ma garanayno waa la qaawan yaho la qatan yahay adcaada halkay naga gubaysaa madaxa bini aadamka saa loo dul keenay bal hal saaca maanta adcaada dhex joogso ma karaysa maxaad u malaynaysaa 50,000 oo sannadood baa banka qiyaamo la taagnaanay markaa buu nabi aadam leeyahay oo jannada dhanba ma kaga soo baxdeen ilaa gafkaygii mooyaane jannada janna aadam calayhi salaam markii la abuuray janna ilaahay geliyey jannadii maxaad kaga soo baxdeen waa gafkaygii anu waan gafay buu leeyahay waan dembi baa galay dembigaasi muxuu ahaa fakulaa minha xayثu shi'tuma walaa taqraba hadihi الshajarata fatakuna min الظaalimiin jannadaas waa taasi ku dhexayada baa ilaahay ku yidhi meeshaad doontaan ka mara waxaad doontaan ka dhex cuna laakiin geedkaas ha u dhowaanina baa ilaahay yidhi geedkaas haddaad geedkaa u dhowaataan daalimiintaad ka mid noqonaysaan baa lagu yidhi aadam calayhi salaam geedkii buu cunay siduu ku cunay geedkaa la yidho ibliis calayhi lacna oo marka horeba ku dhaartay aadam iyo duriyaddiisa inuu jannada ka dheerayn doono oo dariiqa xaqana uu ka dheerayn doono ayaa maaragtaane yidhi yaa aadam geedkaa lagu diiday cunidiisa ma taqaanaa fawaa'idda ku jirta maayo ma garanayno isagii xawaa wuxuu leeyahay haddaad geedkaa cuni lahaydeen ama laba malag baad ahaan lahaydeen ama weligiin iyo allihiin jannadaad ku wari lahaydeen baa lagu yidhi waa labada sifee bini aadamku mulki buu jecel yahay mulki daa'ima nolol daa'ima raaxad daa'ima barwaaqo joogto ah taana jannada un bay taalla ifka ma taallo daadna shaydaankii baa markaa meeshan taagan oo nebi aadan geedkii markuu cunay baa jannada laga soo saaray yowma aljumca laga soo saaray bacda salaat alcasr jimca la abuuray jimca jannada la geliyey jimca jannada laga soo saaray jimcay saacadda qiyaamadu dhici doontaa maalinta jimcada saacat alijaaba ku jirto ducada la aqbalaya ku dhex jirta yowma aljumca nebi aadan la abuuray bacda alcasr maalin jumca jannada la geliyey maalin jumcana jannadii waa laga soo saaray nebi aadam gefka jannada looga soo saarayna waa gefkee buu ahaa waa geedkaasuu cunay bes waxaa halka aan ka fahmnay leeyihiin culimmadu laga fahmaa mar kastoo bini aadanku ay dembi ay ku dhacaan ilaahay raxmaddiisay ka sii dheeraanayaan mar kastoo daaco iyo khayr aad la timaadana ilaahay naxariistiisi iyo jannadiisi iyo ridihiisii baad usii dhowaatay aadam calayhi salaam wuxuu leeyahay jannada dhan baa dembigaygii anugu aan gale baad kaga soo baxdeen ordoo u taga khayrkay nuux baa loo iman calayhi salaam nebi nuux wuxuu leeyahay isaguna waa run ana rasuullada ugu horreeyey laakiin ducadaydii la aqbalayey waa anigii adduunka ku soo isticmaalay ummaddayda ku habaaray een idhi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara rabbi innii maqluubun fantasir waa anigii idhi maadaama ducadii keliya la aqbalayay adduunka anigu aan ummaddaydii ku soo habaaray ka ducadiisa la aqbalaya maanta aniga maaha shafaacadana aan u malihi buu leeyahay idhabuu ilaa hayrii ilaa ibraahim calayhi salaam nebi ibraahim baa loo iman nebi ibraahim markii loo yimaadee la yidhahdo khaliilki ilaahay baa tahay saaxiibkii ilaahaye noo shafeecad qaad wuxuu leeyahay 3 beenoon adduunyada dusheeda ku soo sheegay ayaan maanta ka baqayaa in lagu qabto buu leeyahay mise been 3 keliya innaka maalintii mise been bay naga dhacdaa waa noloshiisii oo dhan buu ku leeyahay nebi ibraahim 3 been baa ayaa iga dhacday 3dii baan ka baqayaa maanta in laygu ciqaabo oo laygu qabto 3da been sidee kala ahaayeen beenta koobaad waxay ahayd maalintuu nebi ibraahim u damacsanaa asnaamtan ay caabudayaan inuu ka jajabiyo ee la yidhi waa ciid oo magaalada cidna ku hadhi mayse bannaanka uga soo baxa aqallada maalintii la yidhi ayaa weliba ciidan loo diray aqalladoo la yidhi dadka ka soo saara boqorkii baa wada doonaye askartii markay nebi ibraahim u yimaadeen wuxuu yidhi anu ma socon karayo waan xanuunsanahay buu ku yidhi faqaala innii saqiim anu waan bukaa buu yidhi waa jiranahay runtii uu jiranaa muxuu ka jiranaa dadkan gaalnimada ku dhimanaya
ee dhagax gacantooda ay ku sameeyeen caabudaya baahidooda u sheeganaya waa wax laga xanuunsada weeyaan innaka taariku salaagu muna xanuujiya ya meel kasta macsiba ka dhacaysa kama damqanayno ibraahim calayhi salaam dadkan gaalnimada ku nool buu ka damqanaya ee shirkiga ku jira laana shirkigu waa dulmi la galo ka ugu weyn luqmaan alxakiim inankiisa muxuu ku yidhi yaa bunaya laa tushrik billaahi ina shirka la dulmun cadiim ilaahay keyrkii oo la baryaa ilaahay keyrkii oo la tala saartaa ilaahay keyrkii oo laga baqaa ilaahay keyrkii oo la rajeeyaa ilaahay keyrkii oo maaragtaanay baahida loo sheegtaa waa shirk ina shirka la dulmun cadiim buu yidhi maadaama qoryo aad samaysateen dhagax gacantiina aad ku samaysateen aad baahidiinna u sheeganaysaan waa shirki weeyaan ilaahay waad u shariig yeesheen ilaahay looma shariig yeelo ilaahay keligii in la baryuu mutaystay bas taasaa markaa nebi ibraahim xanuujinaysa isaga innankana maanta aqaladeennii asxaabteennii qaraabadeennii ehelladeenii meeqaa bilaa salaada meeqaa u socota sidii ilaahay uusan raalli ka ahayn yaa ka damqanaya maanta mid walaalkaaya hadduu jiran yaho xanuunsan yahay waad u damqanoo markaaba dhakhtarkaad geyn hadduu gaajoonayo markaaba cunnaad siin hadday reerkiisii dhib ku dhacday dhibaatada waad uga damqan laakiin salaad la'aan cid ka damqanaysa maanta way yar tahay dhibta ugu weyne maanta ummadda ku dhacda waa maxay agteennii baa nuqsaan diineed ay taallaa oo dadkii ehelladeenii maalinba maalinta ka dambaysay ilaahay ka fogaanayaan kama murugoonayna kamana damqanayno nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu yidhi innii saqiim anu waan jiranahay buu yidhi beeni waa taas kolkay ka tegeen faaka asnaamtiibuu qabto uu jejebiyey kii weynaa buu reebay bas faaskii uu ku jejebiyeyna kii weynaa buu qoorta u sudhay magaaladii markii lagu soo noqday meeshii macbadkii ay yimaadeen bay yidhaahdeen ayaa aalihadeennii sidaa u jejebiyo u galay waxay yidhahdeen magaalada qof kale kagamanu tegine yarkii yaraaya ibraahim baanu kaga tegnay keligii bas weliba ibraahim waxaa lagu yaqaanay asnaamteenna mar walba uu caayi jiray ibraahim calayhi salaam aabbihii aazar ayaa asnaamta gacantiisa ku samayni jiray deedna intuu u dhiiba asaga oo yar buu ku odhan jiray oradoo magaalada inoo geeyo suuqa dhigoo inoo iibgee markaabuu nebi ibraahim intuu xagga kaga soo xidh xadhig ama xagga ayuu dhulka jiidi jiray markaasuu odhan jiray man yashtarii minii ayaa aniga iga gadanaya man laa yanfac walaa yadur midaan dhibiya dheef midna aanan lahayn kiine baa iga gadanaya buu odhan jiray ilaa nebi ibraahim aabbihii lagu soo dacweeyo la yidhaahdo yarkaaga ilaahyadeeda ha nooga dhiibin uu naga aflagaadeynaya maalin walba cajiib waa nebiga isaga oo yar hooyadii ku yidhi hooy aniga ayaa i rabbeeya yaa aniga i barbaariyo wax isiiyo baahideeda daboola markaa bay ku tiri de aniga markaa buu hooy adigana ayaa ku rabbeeyo baahidaada daboola markaa bay ku tiri de aabbaha markaa buu hagaag aabbahayna isagana ayaa rabbi oo ka sarreeyo wax u soo dhiiba markaa bay tiri dee namruud boqorkii markaa buu waa hagaaga namruudna isagana rabbigee ka sarreeya wax u dhiiba markaa bay dharbaaxa ku dhifatay ku tiri namruud rabbi ka sarreeya ma jire aamus yaan lagu maqlina bay ku tiri markaasuu yidhi hooyo may anu rabbi baan raadinaya rabbigii weynaa ee koonka iyo kaa'inaadka abuuray baan rabaa inaan garta buu yidhi ibraahim fitradii baa yaa dhaqaaqaysa moogta fitra saliima ku jirta qalbigiisa fitradda lehe allah baa koonka ka taliya allah baa wax kuu siiya allah baa wax kaa qaadi kara dhibiya dheef ilaahay baa haya noloshii dhimashada ilaahay baa haya ciziya dulli xagga alluu ka yimaadaa faqriga khina ilaahay baa keena xanuunka iyo caafimaadkana allah baa keena cid kale ma keento cid kale ma keento ibraahim calayhi salaam maadaama uu aalihadeenna yaraantiisii uu aflagaadayni jiray asaga keligiina magaalada uu ku hadhay asagaa jajabiya la yidhaha la soo qabto maxkamaddii baa la keenay maadaa sidaa u galay qaala bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun buu yidhi in kaanuu yantiquun maadaa sidaa u jajabiye maya kawogii weynaa waa kan baad arkaysaan faaska qoorta ku sita isagaa cadhooday oo xanaaqoo yidhi aniga yaryarka sidee layla caabudaa marka isaga weydiiye buu yidhi beenta labaadina waa taas
bal labada beenood horta eeg u horeysa cajiib soo ma beenta saddexaad waxa weeyaan isaga iyo xaaskiisii oo bad doon saaran ayaa waxaa ka soo horbaxay nin boqora oo daalima oo gabdhaha maaragtaan intuu ragga ka qaato faraxumeeya markaasuu nebi ibraahim xaaskiisa ku yidhi haddaan idhaahdo waa xaaskaygii way iga kaa faraxumeynayaan oo way ku dhibayaane ragga waxaa inta badan lagu qadariyaa gabdhaha walaalahoode waa walaashay baan odhaniye adiguna waxaa tidhahdaa buu ku yidhi waa walaalkay dhabuu ka yidhi beenta saddexaadna waa taas walaalayna ahaayeenoo xagga diintay walaala ka ahaayeen inama almu'minuuna wax dad muslima oo iimaan la labadooda adduunyada ku noolaa baa la yidhi saddexdaa been buu nebi ibraahim uu leeyahay banka qiyaame in laygu qabtaan ka baqayaa meeqa beena innaka jeebadaha inooga buuxda maanta beentii baa iska noqotayba waxa iska caadiyadee oday baa inankiisa ku yidhi waryaa aabba beenta iska daa buu ka yidhi beenta iska dhaaf been baa lagugu sheegaya adiga beenalow ha noqon markaa buuhi waa yahay aabba haye aab ku noqon maayo waa seexanayaa buuhi odaygu uu yar jibsado yarkiisiibaa u yimid oo yidhi aabba odaygii hebel hebel ahaa ayaa iridda kuu taaganoo ku doonaya markaa buuhi uu jiifaa ka dhab yidhi kii yaraa baa yidhi baleeg aabbahay beentana daa buu leeyahay asagiina way barayaa buu yidhi isagaa macallina buu yidhi yaa macallina aabbihii dhannaabaa macallina mid kale inankiisa ku yidhi waryaa sigaar baad cabtaa baa la dhuudhuumataay maxaa ka jira aabba ciyaalka saaxiibaday kuwa sigaarka cabaan la socdaayo laakiin anuu sigaarka ma cabo waa hagaaga wuxuu ku yidhi sigaarka ha cabin buu ka yidhi hay aabbo intuu lacagta soo saaruu ka yidhi waa kana sigaarka ii soo iibi buu ka yidhi anigana beenta innakaa maanta mujtamaceenna barayna ibraahim calayhi salaam uu leeyahay saddexdaa beenood ayaan adduunyada ku soo sheegay intaan joogay in laygu qabtaan ka baqayaa buu yidhi ibraahim alkhaliil marka shafaacadan anigu ma lihiye idhabuu ilaa hayrii muusa loo iman calayhi salaam nebi muusena wuxuu leeyay anuu naf bini aadana ayaan gooyey oo halkii naftii maalinta aan dilay feedhka ku dilay inaan laygu qabtaan ka baqayaa maante idhabuu ilaa hayrii fayaatuuna ilaa ciisa bna maryam nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ba u iman doonaan nebi ciise markii loo yimaado isagu wax cudurdaara sheegan maayo laakiin waxau leeyahy anigu shafaacadan malihi fayadhabuuna ilaa muxamadin calayhi salaatu wasalaam nebigeennii udgoonaa calayhi salaatu wasalaam baa loo imani doonaa oo la odhan doonaa yaa muxamed adiga ayaa nebiyada ugu dambeeyey ilaahay dembigaagii hore iyo dembigii dambeba ilaahay waa kaa dhaafay oo ilaahay jalla wacalaa macsuum buu kaa dhigay imaamulambiyaa baa nebigeenna ilaahay ka dhigay khaatamu nebiyiin baa ilaahay jalla wacalaa uu ka dhigay markaasay leeyihiin noo shafaacad qaado ilaahay nooga ergee markaa buu nebigu leeyahay waxaan odhan doonaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ka ducadiisa la aqbalaya waa aniga ka shafaacadda maanta laga aqbalaya waa aniga idaa samictum almu'adina faquluu midla maa yaquulu uma salluu calaya uma saluu llaha liya alwasiilata man sa'ala allaha liya alwasiilata xallat lahu shafaaca marka aadaanka aad maqlaysaan ayuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam mu'adinku erayada uu leeyahay ka daba dhahada aadaanku markuu dhammaadana aniga igu salliya buu nebigu yidhi wasiilana ilaahay ii weydiiya wasiilo ilaahay ii weydiiya wasiiladu waxa weeyaan waa mansilad jannada ku taalla waa mansilad addoon uu galo ee jannada ugu darajo sarraysa addoon addoommaha ilaahay ka mida unba geli doona addoonkaasina waxaan ku rajo qabaa inuu noqon doono aniga buu rasuulku yidhi ninka wasiilada ilaahay ii weydiiya maalinka qiyaamaha shafaacadayda u xalaalowday buu rasuulku yidhi فأقول أنا لها أنا لها أنا لها كدعادي سل أقبله ما أنت وأنيقا وأن دقاقب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرش ربي حق عرش كانوا دقاقي فأقع ساجدا لربي ربي غيبا سجود أدعي دونا وحي إلهي إيفر دونا بور أمان الله أمانتي وأن هري أدون كدوشيد أن لو أمان وأنيقنا أن هري إيسومرين أيام مالنتا إلهي إيفر دونا دنا مركابا إلهي أماني دونا مركابا الأردنا يا محمد ارفع رأسك مدح كروقات سل تعطه شيغا واحد دونيسو واحد شيغة إلهي وكسينا يا اشفع تشفع ارقد دلب بالأردنا يا ارقد هذا والله أقبل يا شفاعات قاد
markaasaan odhan doonaa rabbi ummatii ummatii muxuu odhan doonaa rabbi ummatii ummatii ma odhanayo inantaydii faatima ma odhanayo maaragtaan zawjadaydii caaisha dadka xaasaskiisa ta ugu jeclaa waa caaisha radia allaahu canha dadka kalena ta ugu jeclaa waa faatima radia allaahu canha safar haddii uu ka yimaado masaajidka intuu 2 rakaca ku tukado inta xaasaskiisa uusan tagin nebigu inantiisa faatimuu ka bilaabi jiray ziyaarada markaa bay dhunkani jirtay camar binu caas allah raalli ka noqdee baa saxaabada ku yidhi nebi maxamed asxaabta anuu iigu jecel yahay markaasaa lagu yidhi arbilo lagaa jeclaa cid kale may laygama jeclo nebigu anuu dad iigu jecel yahay markaa buu waan weydiinayaa nebiga u kaadiya markaa yaa rasuul allah dadka yaad ugu jeceshahay markaa buu nebigu yidhi caaisha dadka ugu jeclahay buu yidhi xaaskiisii inaku ninku naagtiisa xaaskiisa inuu yidhahdo iyadaan dadka ugu jecelahay uu ka xishoonaya sooma waa la odhanaya islaantiisa uu jecel yahay cayb ma aha dacaayad ma aha waa curfi waa cishradii nebigeena calayh isalaatu wasalaam wareerihiisa kula dhaqmaayey dadka ayaad ugu jeceshahay caaisha yaa rasuul allah ma aha xagga haweenka xagga ragga miyaad ii weydiisay haa abubakar aabaheed haddana cumar waan iska aamusay buu yidhi waxaan ka baqay buuhi haddaan sii wadi lahaa inuu nebigu iga dhigi lahaa qofka ugu dambeeya saxaabadiisa uu jecel yahay marka nebi maxamed tuu dadka xaasaskiisa ugu jeclaana waa caaisha ehelkiisa ciddii ugu jeclaana waa faatuma banka qiyaamo marka la soo saaro odhan maayo yaa rabbi xasan iyo xusein baan ku weydiinayaa ergo odhan maayo wuxuu leeyahay yaa rabbi ummatii ummatii yaa rabbi ummadayda ummadaydi ummaddiisu waa innaka ummaddiisu waa asxaabtiisii ummaddiisu waa cid alliya ciddii muslima a shahaadanaysa qabuuraha baqiic ayuu nebigu maalin ziyaartay markaasuu u duceeyey daedna markaabuu raggii la socday buu nebigu soo daymado wuxuu yidhi wadidtu low annii laqiitu ikhwaanii waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahay la kulmi lahaa markaabay saxaabadu yidhahdeen nebi allow annaku walaalaha ma nihin miyaa markaabuu nebigu yihi maya ininku asxaabtay baa tihiin walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ayakuna imay arkin oo imay soo gaadhin aniguna ma arag buu rasuulku odhan doonaa waa kuwa gadaal may iman weli adduunka laakiin way iman doonaan buu nebigu yidhi markaabay saxaabadu yidhahdeen oo adiguna maad soo gaadhin oo maad arkin ayakuna kumay arkina qiyaamaha seed u garan doontaa noo sheeg waxau nebigu yidhi halkii ay weysada marin jireen oo iftiimayso cadcad ayay banka qiyaama iman doonaan deedna markaasaan ku garan doonaa buu yidhi calaamadii weyse qabka qofkaan weysaysanaya ka warrama isaga qofka kubkiisa weli biyo aanan marin ee ilaahay aan u sujuudin ee maskiid aan soo gelin maxaa lagu garan isagana dadka salaadaha 5 waqti ilaalinaya banka qiyaamaha lagu garan doona ayaka midkiin hadduu leeyahay buu nebigu yidhi fardo qoobab ka cadcad oo wejigana ka cad haddii lagaga dhex daro fardo madow oo wada cascas fardihiisa miyuuna ka dhex soocanayn saxaabadu haa uu ka dhex garan doonaa markaa buu nebigu yidhi ummaddaydu banka qiyaama waxaan ku garan doonaa halkay weysada marinayaan oo iftiimaysa iyo iman doonaan buu rasuulku yidhi kuwii tawxiidka iimaanka qalbigooga ku haystay ee islaamnimada qalbiga ay kaga jirtay ayakoo dunuub samaynayana adduunyada ka baxay ayakana nebigu ka hadhi maayo jahannama lagu guri ilaahay jalla wacalaa markuu naartaa jahannam oo kaga aargoosto ayaa kuwa gaalada odhan doonaan diintii islaamkeed u nisbad sheeganayseen hamee waxbay inii qabatay sawnaka meel keliya ku wada jirnama hal mar keliya ayay odhan doonaan waa muxamadaa waa muxamadaa waa muxamadaa markaa buu nebigu odhan doonaa yaa rabbi kuwaa jahannamo ka dhex dhawaaqaya magacayga qabsadayna waa ummadaydiiyo waa cusaaddii ummaddaydee cadaabkaa intaad cadaabtay ayaad kaga aargoosatay ilaahayow ilaahow shafaacaddeeda ayakana gaarsiiyo naarta jahannama uu ka soo saar buu odhan doonaa kuwii naarta ku dhacay markaasay ka soo bixi doonaan buu nebigu yidhi iyakoo noqday dhuxul oo kale dhuxul madow albaabka jannada tog mara oo la yidhaha magaciisa nahrulxayaat ayaa lagu tuuri doonaa buu rasuulku yidhi daedna markaasay soo biqlayaan sida geedka u soo baxo
ayaa jirkoogii baa soo bixi doonaa leena marka jirkoogu sidoodii ku soo noqdo ayaa halkaa waxaa kaga qornaan doonta aljahannamiyuun kharajuu min annaari bishafaacati muxamed kuwaas waa kuwii jahannamo la geliyey ee shafaacaddii nebi maxamed kaga soo baxay jahannama markaabaa jannada la gelin doonaa iyakana cusaaddii ummaddiisa nebigu kama hadhin muslimkii caasiga ahaa ee isagoo maaragtaane dunuub wata oo dunuub badan wata adduunyada ka tegay naarta la geliyey ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u shafaacad qaadi doonaa oo shafaacadda nebigu kaga soo bixi doonaa naarta jahannama haddana dad kale ayaa naarta ku dhex jira welibana kuwaasna waxay odhan doonaan laa ilaaha ila allah gaaladaa ku odhan doonta laa ilaaha ila allah dii adduunyadaad ku lahaydeen hamay waxbay niin qabatay odhan doonaan sawnaga meel keliya ku wada jirnama inikoo laa ilaaha ila allah leh deedna markaasaa ilaahay odhan doona akhrijuu min annaari man qaala laa ilaaha ila allah qofkii adduunka dusheeda intuu joogay laa ilaaha ila allah yidhi naarta ka soo saara baa ilaahay odhan doonaa quluu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah sal alla alay wasalam laa ilaaha ila allah quluu laa ilaaha ila allah way ka soo bixi doonaan iyakuna rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin waa maalinta gaaladu odhan doonaan magaca un maan islaam ka sheegano maanta naar kuma jirin annakune walaal islaamnimadu waa nicmo weyn oo ilaahayna siiyey ilaahay aan ugu xamdino abaa aalib nabigeenna adeerkii sal alla alay wasalam markuu sankaraad ku qabtay nebigu uu ziyaartay markuu u tegey waxaa ag fadhiyay abu jahl calayhi lacna markaa buu nebigu xagga madaxa ka fadhiistay adeer qul laa ilaaha ila allah buuri hal mar keliya laa ilaaha ila allah dheh maalinka qiyaamaha kuu shafaacad qaadiya bal dhegaysta hal mar keliya markaasuu abu jahl abu aalib uu aamusay xagga kale waxaa ka fadhiya abu jahl abaa jahl baa soo jiidoo ku yidhi atargabu can millati cabdilmualib abaa aalibow adoo gadahaaya diintii cabdilmualib ee awowga aabbaha iyo aabbayaashii aad ka soo gaadhay miyaad maanta ka tegaysaa oo maxamed warkiisa qaadanaysaa markaa buu aamusay haddana nebigu sal alla alay slam in yar kadib uu la hadlay adeer qul laa ilaaha ila allah uxaaju laka cinda allahi yowma alqiyaama dhegaysta hadalkaas in yar dhaqdhaqaaqa naga daaya in yar waa dhownahay waa soo gaabinaynaa markaa buu uhi laa ilaaha ila allah dheh uu aamusay abu aalibna xagga kale abu jahl baa fadhiya balaag waa xaqiiyo baadilkii baa isgara fadhiya dacwaddii xaqa iyo dacwaddii baadilka waa siraac labadaa ma kala hadhaan ogow sida banoonida laba qolo iska soo horjeeda mar walba u ciyaaraan koonkan gebigiisu banooni baa lagu ciyaaraya ogaada yaana ku ciyaaraya xaqa iyo baadilka kolba qoladii dadaal sarraysa ayaa adduunka qabsan ahlalbaatilku hadday naga dadaal sarreeyaan shar bay adduunyada ku fidinayaan fasaad bay adduunyada ku fidinayaan dulmi bay adduunyada ku fidinayaan been bay adduunyada ku fidinayaan fisqi iyo fujuur bay adduunyada ku fidinayaan ahlalxaqu haddii dadaalkoogu uu kor marana khayr iyo wanaag iyo ixsaan iyo cadaalad iyo maxabo iyo nabad ayay adduunyada ku fidaysa siraac labadaa qolo ilaa qiyaamaha wasaysanayaan ilaa banka qiyaama laga soo baxayo xaqana ilaahay caza wajalla iyo ambiyadiisa ayaa ka mucalimiinaya malaa'igta baatilkana ibliis iyo shayaadiinta iyo munaafiqiinta iyo yahuud iyo nasaara ka mucalimiina xisbullah iyo xisbu shaydaan meel macsiya markaad ku jirto xisbiga shaydaanka aad u gargaartay ogow miskiin markaad dhex fadhida khayr ka shaqaynaysid khayr maqlaysid xaq xisbullaahi baad ku birtay ogow xaqi ilaahay baad ka shaqaynaysaa xaggana waxaa fadhiya moxamed calayhi salaatu wasalaam xagga kalena abu aalib baa abu jahl baa fadhiya marna nebigaa la hadla saasuu eega
marna abu jahl baa la hadla saasuu eega waa maalintii soo degtay aayaddan qur-aanka innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin kaad adigu jeclaata hadayni maysid baa lagu yidhi laakiin ilaahay kuu doona isagaa hadaynaya bilaal allah raalli ka noqday baa laga sheegay maalin maalmaha ka mid a isagoo ducaysanaya inuu yidhi ilaaha hidaayadda gacantiisa ku hayay ee nebi maxamed gacantiisa aanan ka yeelin baa mahadle buu yidhi markaasaa lagu yidhi bilaalow hadalkaa maxaad u tidho wallaahi waa runtay haddii nebi maxamed uu cid hadaynayo aniga hidaayaddu ima soo gaadheene adeerkii abu aalib buu hadayn lahaa buu yidhi adeerkii abulahab buu hadayn lahaa bilaal oo xabashiya ayaa ilaahay hadeeyey abu aalib oo maki oo qurayshiya oo nebi maxamed adeerkiiyana ilaahay ma hadaynin salmaan oo farisiya ilaahay hadeeyey jala wacala waliid binu muqiir oo qurayshiyana waa la hadayn waayey alhaadi waa ilaahay yaa hidaayadda haya marka hidaayadan waa tii tawfiiqda ahayd waafajinta ilaahay baa haya cid kale ma hayso laakiin tusida dadka in xaqa la tuso oo dacwadda la gaadhsiiyo oo la baraarujiyo oo loo nasteexeeyo oo wanaagga la faro oo macruuf oo xumaha laga reebo taasi waa wadiifatu lambiyaa waa shaqadii nebigeena loo soo diray waana shaqada laga doonaya ummadda nebi maxamed inay qabato innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa marka hidaayadda ilaahay baa hayaa allah inagu suga hidaayadda abu aalib way ka dhacday naftu uu ooyay nabigeenu sal alla alay slam yaa cammi saasuu yidhi yaa cammi la astakfiranna laka maa lam unha canka buu ka yidhi yaa cammi adeer haddaa marba adigu kelmadda ayuu odhan weyday aniga ood leedahay calaa millati cabdilmualib baan ku dhiman aad igu tidhi aniguna ka tegi maayo inaan dembi dhaaf ilaahay ku weydiiyo ilaa inta layga reebaya ka hor adeerkii oo ku dhintay xaaladdaas ayuu nebigu bilaabay inuu u duceeyu yidhaahdo ilaahu adeerka u dembi dhaaf ilaahu adeerka u naxariiso ilaahu adeerka u dembi dhaaf ilaahu adeerka u naxariiso asxaabtiina way maqleen markaabay adeeradoodii aabbayaashoodii gaalnimada ku dhintay duco u bilaabeen markaasaa ilaahay yidhi maa kaana lilnabiy waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim cajiib u jeclaa nebigu adeerkii inuu naar ka badbaado inuu islaamnimo ku dhinto maalintii fatxi maka uu nebigu furtay sal alla alay wasalam abubakr sidiiq baa aabbihii oo gaboobo indhabeelay buu nebiga u keenay abi quxaafa abubakr sidiiq radia allahu canhu waa saxaabiga keliya ee isagii saxaabi noqday aabbihii saxaabi noqday hooyadii saxaabiyad noqotay xaasaskiisii saxaabo ay noqdeen ubadkiisiina asxaaba maxamed ay wada noqdeen abubakr sidiiq keliya waayo wuxuu ahaa ninka ugu dhaqaala bixin badan buu ahaa marka diinta dadaalkayga difaaceega ugu dadaal badan ugu fikir badan nebiga cid isaga uga dhow ma jirayn maadaamuu dadaalkiisii boqolkiiba boqol uu geliyey diinta ilaahay wuxuu ugu abaalguday labadiisii waalidood da'ah ilaahay inuu hidaayadda siiyo fatxi makuu keenay aabbihii oo indhala markii nebigu dadka uu u laqinaya tawxiidka markuu abu quxaafo oo timihii wada caddaadeen oo xirribihii wada caddaadeen oo indhaluu keeno gacantuu nebiga gacanta u saaray markuu ashahaatay ayuu abubakar iska ooyay allah raalli ka noqdeen baka bal si fiican qisadda u dhagaysta markaa buu nabigu yihi sal alla alay slam abubakar maanta waa maalin farxadeh maaha maalin la ooye maxaad la ooyeysaa buu ka yidhi aabbahayo gadahaayaa ilaahay kuu soo hadayuu naar ilaahay ka badbaadiye hadal macnihiisu ahaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah waxaan farxi lahaa halka aabbahay uu joogo adeerka abaa aalib oo joogi lahaa ayaan farxi lahaa buu yidhi waxaan la ooyey wax kale maaha buu yidhi waxaan ku farxi lahaa
halka aabbahay maanta uu taagan yahay Abu Quhaafa oo Aba Talib uu joogi lahaa oo hortaada ku islaami lahaa oo marka adigu aslaannimada adeerka aad ku farxi lahayd ayaan aniguna farxi lahaa buu ka yidhi bal ka warrama shucuurta ka warrama Abu Bakar ku jirta intee laagtahay innakana maanta agteena dadkeeni baa bila salaada dhalinyaradeenni baa maalinta ka dambaysa diinta ka sii fogaanaysa ya cid murugoonayso ka fikiraysa diintaas ma jirto dareen xataa dareenkii baa jirin ba maanta shucuurtii inta diinta islaamku agteena ay ku dulman tahayna inakuna dulmi uma ku jiranayo ogaada maalinta diinta aan u damqanno ee diintan kor u qaadno ee diintan aan ka shaqayno ee mujtamaceena diinta aan kula dadaalno waxaa noo bilaamaysa nolol macaan oo cusub ay noo bilaabi doontaa wa innahu lakitaabun aziiz wa innahu lakitaabun ilaahay baa kitaabkan waa aziiz diintan cizi baa ka buuxa sharaf arsaaqad barako maxabo nabadgelyo cadaalad khayr wanaag oo dhan cizi baa diinta ka buuxa haddaad kitaabka ka shaqeyno sidii ummadeena iyo mujtamaceena diin uga muuqan lahayd oo wiilasheena gabdhaheena ubadkeena diin ku tarbiyadeyn lahayn oo xaafadaheena qof bila salaada aan looga waayi lahaa oo wixii munkarana ka munkarka wadana gacanta qaban lahayn dadkana wanaag iyo khayrka aan fari lahayn oo dhalinyaro iyo odaynta gacmaha isqabsanno aan nuqsaanta diinada xaafadeena sidaan u zuulin lahayn haddaan ka shaqeyno diintaas kor inoo qaadaysa ogow عزيز ويا كتاب كان عدي دين تغادتن إلهي وعزية الله نفهم شيء إن شاء الله هذا ديا وديار الدين تاينو قاتو عزي شرف أرزاق نبت قليو بركو هل كدين تدقتا إلهي هذيك أنا كودقي يوجو هل كدين الإسلام كأدقتب إلهي كودقي دول كدقت دول كارث هذا دول كسدقي هذا دين تكرر قادو سكر دين تكرر لوجو قادا دين بانو نولانا يا دين بان برانا يا دين بانو مدة أقوياء يا دتك دين بان كو حريرنا يا دين الآن نقف كوا كو جوينا يا نو قف كان حريرنا يا دين الإسلام كان كو حريرين وقف الإسلام لماذا كو قدرين قبيل كو قيمين مايو لعك كو قيمين مايو قروح كو قيمين مايو وحكو قيمين يا ودين الإسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ونبي يقول أوثق عرى الإيمان والإسلام ما هينا داخله وح إسلام ما كهو سيسها أقبلين إنك مسلم كو الله نداره هل بليون يتضرب بقول أو مليون أو شخصي أو الدنيا كون ولا مسلمين ولا لها يا عد أذيك كالله ندرسن ما جرتو marka wayna ku wada shaqeynaa islaamnimo muslim ana islaamnimada isku jeclaana islaamnimada isku qadarina islaamnimada isku buuqana islaamnimada isku damqana islaamnimada isku tubna sidiintaasi agteena marka qiimo u yeelata bay culimadu leeyihiin waa inaan waqtigeena diinta ku bixinaa waa inaan ka shaqeynaa waa inaan maalkeena ku bixinaa waa inaan ilaahay dartii u baxnaa إن شاء الله هذا إن شاء الله قرية وديار المرء جماعة هذا إلهي درت وسع ذين الرعب هاي الريحة مروين ما شاء الله ما شاء الله مساجد كي الشريف شرفه الله نحرسه ودعوة كبل أبي ويا المركز كي دعوة والله مركز كي دعوة منبع الخير وماله وجوه الرئيسي دين تيانو كسوق شجيز كأفريقيا حافظنا جوكتان تصدمه زي لا مقدشو مركة براوي يعني صحابة يتابعين يتابعوا تابعين أي مركة رسالات دقيس أفريقيا جالسين إلى كسو قلين ويان مركة الدين بعدول كانوا إيمان نبي نكو مركة إنه ربع هدي أجداد دين الله إيجو وتاريخ دين يديب لوجو نقضوا الديود والدين ودل كانوا إيمان الدين بوي ما دين شغدي أجدادنا هنقبصنا إن شاء الله دنبينا الله داف دنبي والدين تنا الله داف دينت الله إنه معاني مرل كان الله شافي موتات كان الله ونحرس أمن جاء إيمانك الله إنه زيادي مسلمين تميل جوعنا موافقين من دمان الله سيء
dad badan oo walaalaheena ayaa ducad codsanaya in loo duceeye qaarna la jooga qaar inaga maqane qof walba halkuu ka kurbaysay kurbada ka dareemayo Allah ka faydo kuwa bukana caafimaad sariic Allah siiyo kuwa ubad doonayana ubad wanaagsan Allah ku arsaaq kuwa arsaaqadu ciriiriga kaga jirtana arsaaqad waasic oo barakaysan oo xalaal Allah siiyo diinta iyo taacada Allah inoo macaaneeyo nabadana Allah inoo adkeeyo sallallahu alayhi wa sallam